خيرا سؤاشي نافر بقول سغاشي لبو قبل إنه حيلته السلام عليكم نينكيغا أيا السحري مدائيا حنون سناء إساقانا قرتين السحري كدب نسي خصب أيان إساقفري ما كدن بابا يا فريتانك خصب كأ horta waa nin baa naagtiisa sixray iyo naag baa ninkeedii sixirtay iyo wax kani waayaan waa badan yahay waxan ruuxa inuu ku sixray in qiraal la helo mooyaane sidaan darsigeen muxaadaradeen waxaan u jeedaa xalqadeennii horeba kaga hadalay ruux ka dhaxadlay ama wax ka dhaxadlay ruuxa war uu yidhi lama cuskan karo horay baan u sheegnay taayada haddii saqirtay inuu sixray oo ficilka sameeyay ruuxa sixirka sameeyay ama ka shaqeeyay culimada laba mid buu u dhaxeeyaa inuu faasiq yahay iyo inuu kaafir yahay in badan ahli cilmi kamida waxay qabaan inuu dagaaloobayo diinta ka baxay oo nawaaqiday ku dareen sixirka qaarna waxay leeyihiin kabaa'ir adh-dhunub ku jira waa la tafsiilin oo intiisa ugu yar baa waxay ku jirtaa kiisa ugu fudud dambiyada waaweyn buu ku jiraa macnaha fisqigu ka dhalanaya ruuxu faasiq ku noqonay saxaabada manhajkooda ridwaanullaahi calayhim wuxuu ahaan jiray sida Umar iyo qeyrkiiba ka sugan saaxirka in la dilo oo qorta loo caseeyo laana waa mufsid warka markii la soo ururiyo haweeneyda lagu ibtileeyay nin saaxir ah oo sixirka qirtay oo sixray xaq bay u leedahay inay dalbato furitaan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkii sida laga fahmayo hadii haweeneydu ninka ay baas iyo dib kala kulmayso غير ما بأس mafhuumkeedu wax weeyaan haduu baas iyo dib uu ku haya inay furitaan dalban karto baas ka weyn sixirna waa yariye nin saaxir oo reerkiisii sixirayaa waa baas weyn وبالتالي inay dalbato iska furto way heli kartaa haduu furi waayana inay maxkamad tagto iska fasaqdo xaq bay u leedahay qasab baan isaga furay jidku waa ka jidku ama waa inay isagii furo ama inay maxkamad sharciye ay furto wallahu a'lam جزاك الله خير